بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله محمد وصحبه وسلم. waxaan bogaadinayaa doorka shirkadda Hormuud ee ku leedahay arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya, gaar ahaan suuqa maaliyadda financial marketka Soomaaliya. Shirkadda Hormuud oo ahayd shirkaddii ugu horeysay ee soo kordhisa bangi Islaami ah Soomaaliya laga furo, Salaam Somali Bank. Salaam Somali Bank oo hadda kamid ah bangiyada ugu waaweyn bangiyada Soomaaliya. Marka waxaan ku bogaadinayaa dadaalkaas iyo dhiiranaantaas inay ka qayb qaataan in suuqa maaliyadda Soomaaliya kor u qaadaan. Waa runtii tallaabo geesinimo leh in la bilaabo adeegyo casri ah xilli dawladnimada Soomaaliya ay iska ahayd dawlad maxaa la yiraahdaa fragile ah oo aan aad u tababarneen, shuruucdu aysan aad u tababarneen, laakiin hadda wax badan systemkii oo ku dhismay maadaama ay jireen dad Soomaali entrepreneurs ah oo ku dhiiriday inay sameeyaan adeegyada mobile money-ga iyo banking-ka. Hormuudna waxaan leeyahay arrintaas waxay ka ahayd Hormuud ka ahayd, waana u hambalyeynaya. waxaan kaloo rabaa in aan uga faa'iideysto fursadda inaan u hambaliyeeyo shirkadda Hormuud Telecom oo hadda ah sanad guuradeedii 20aad loo dabaaldegayo. Marka waxaan leeyahay hambalyo, guul aan u rajeynaa. adeegyada ay bixiso shirkadda oo aad u tiro badanna waxaan rajeynayaa inay sii wado kuwa kaloo dadka Soomaaliyeed iyo dhaqaalaha waxtar u lehna ay ku soo dartaan rajeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.